الثرى العليا ويبلغنا مرامينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا الثرى العليا ويبلغنا مرامينا. زرعنا في رياض العلم أزمانا أحاينا وحان قطاف ما زرعت بذي الأيام أيدي. هذا هو جواب مركل بسم الله يا الله بيسك لو بدهنا ناس وقفت أصول تقولني دمان كسوق بكلياش شرفت الله أقوى يهندا طلعن يرادا علماء الدينك حوينك كاميرماندا أرضيدا يوجد أهم بأقوى يهندا مركو أقول رئيس مدني علي مروي نحن بسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي قلبتا وحن ملينا إليك تحت بعدك سنة جوردي سدحة معك بريهم عن إيش كهينو عفماتك إنجليشك عربية إيمادوين كله aad ku dadaalay dhammaantiin markuu ugu horeyso sida wada dantiin waxaan idin wada leeyahay hambaliyo intaas kadib runtii way farxad gelinaysaa inaan idinkala soo qayb galo xalfadan xeerka caalamiga loo soo agaasimay isla markaasina ay ka soo qayb galeen dad bulshada inteedii kale iyo qaybaheeda kala duwan runtii waxay u tahay macadka saacid dhiirigelin iyo bogaadin guulaha iyo dadaalada ay wadaanna waxaan leeyahay halkaas ka sii wada sanad guuradan saddexaad sanad guurada xigtana waxaan rajaynayaa ayadoo macadka bulaalay hawada sare gaaray arday fara badan soo saaray in uu ilaahayna gaarsiiyo haddii ilaahay yidhaahdo waxaan u malaynayaa xalfad kasta uu qabsanayo macadka saacid inaan number 1 ahay oo maamulaha uu mahadsan yahay oo sidaas ay soo cadeeyay anigana fursad kasta oo aan hayo ama mashquul kastoon ahayba waxaan diyaar u ahay markaas inaan howlahayga dhan ka soo hormariyo sidii aan ugu soo qayb gali lahaa xalfadda iyo garab istaagna u muujin lahaa maamulka macallimiinta iyo ardayda macadka saacid macadka saacid runtii dadaaladiisa waa aragnaa oo baraha bulshada barta uu ku leeyahay dadaalada uu soo bandhigayo iyo waxqabadkiisa iyo sidoo kaleba xalfadaha aan ka qayb galnay saddexda xalfadood oo hadda la soo dhaafay dufcadii saddexda ah ee qalin jabiyay waa u bogaadinay waa u hambalyeynay run ahaantii intaas oo dadaal ah lama qaban lahayn haddii aysan maskaxda maamulka madrasada saacid aysan shaqayn lahayn waxaan aaminsanahay inay wax badan ku soo kordhiyeen deegaanka ay soo kordhiyeen arday ugu yaraan gurigiisa haddii xanuun uu ka dhaco gargaarka degdega u fidin kara cirbid duuri kara ama dhayi kara haddii uu qof dhaqari gaaro ama wax xun uu dhaco ilaahay ma kasee run ahaantii arrintaas waxay tahay arrin muhiim ah oo deegaanka iyo dadkaba ay macadka saacid u mahad celinayaan oo waxaan leenahay macad saacid aad baad u mahadsantihiin dadaalka aad bulshada u haysaanna annaguna garabkiinaan nahay gaashaanna waa idin nahay insha allah mar kastana waa idin bogaadinaynaa garabkiina allah gala ayaan leenahay sidoo kale waxaan kula dardaarmayaa maamulka iyo macallimiinta macadka saacid dadaalada ay bulshadu u hayaan inay halkaas ka sii wadaan oo sii saddex jibaaraan ardayda qalin jabinaysana waxaan u rajaynayaa in ay waxa ay barteen ay ka hormariyaan danahooda
danaha dadka dalka iyo diinta isla mar ahaantaasina ay wax uun ku kordhiyaan cilmiga ay ku barteen bulshada qaybaheeda kala duwan haddii ahaan lahayd deegaanka iyo deegaanada kale ee Soomaalidu degto marka insha Allah khudbadeyda waqtigu aad noo kulaalaya waa soo koobaya waxaan leeyahay hambaliyo macadkiisa مرحبا مرحبا بك علمي غيب الأجرة مدرسة الأسرة ساعد صومعها